ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay soo rideen 14 diyaarad dagaal oo laga leeyahay Russia 24 saac la soo dhaafay. Diyaaradahan ayaa lagu bartilmaameedsaday gudaha dalka Ukraine. ciidamada difaaca cirka ee Ukraine ayaa sare u qaaday bartilmaameedsashada diyaaradaha dagaalka ee Russia ee duqeymaha ba'an ku haya Ukraine. waxayna burburiyeen 14 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Russia. taliska ciidanka difaaca cirka ee Ukraine ayaa soo saaray warbixin la isku haleyn karo oo lagu daabacay baraha bulshada ay ku xiriiraan. diyaaradaha dagaalka Ukraine ayaa si weyn uga qayb qaatay dagaal ka dhacay dhowr jiho. midaas oo markaas lagu soo riday 2 diyaaradood sidoo kalena waxa lagu burburiyay taangiyo iyo gawaarida gaashaaman. sida ay warbixintan ku soo saareen ciidanka difaaca cirka ee u qaabilsan gantaalaha ayaa waxay sidoo kale sheegeen inay burburiyeen 5 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Russia noocoodana la ogaaday. sidoo kale ciidamada difaaca cirka waxay burburiyeen 3 drones oo ay leedahay Russia. waxa kale oo ay burburiyeen 3 gantaalaha cruise-ka loo yaqaano iyo 1 diyaarad helicopter. 18 bishan Maarso ciidamada difaaca Ukraine ayaa wadar ahaan waxay burburiyeen 14 hadaf oo dhanka cirka ah, 7 diyaarad dagaal, 1 helicopter, 3 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee loo yaqaano unmanned aerial vehicle iyo 3 ka mid ah gantaalaha cruise-ka. sida dawladda Ukraine hore u shaacisayna laga soo bilaabo 24 Febraayo ilaa 18 Maarso ciidamada Russia waxay khasaareen in ka badan 14,000 oo askari oo lagu dilay dagaalkii ay ku soo qaadeen dalka Ukraine.